السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومادة ICT عشر كصدحات كمبيوتر وعن قاعدة إن chapter 2 protecting your computer chapter كان بلا بين protecting your computer دفاع الكمبيوتر الكمبيوتر وحن كدفاعنا فيروس كأنه كدفاعنا فيروس wuxuu halis weyn u keensadaa computerka hadii aan laga difaacin oo aan lagu shubin antivirus shirkado badan ayaa waxay soo saaraan viruska isla markaana waxay soo saaraan antiviruska protecting your computer waa computerka inaad difaacdid computerka difaacina u sameeysid antiviruska فيروس كأكيد دفاعي أنت فيروس ويس كمبيوتر فيروس وامحي فيروس ككمبيوتر كمبيوتر كمبيوتر فيروس كمبيوتر كله عايز ديفاين أسمح الوقت يحيى malicious program وبرنامج that's design بوح له هبيه to damage your computer وبرنامج له هبيه إنه له كمبيوتر ضد designers programmer يا واحد سينكريان برنامج كان إنه كمبيوتر وحياله. The corruption is usually done by Western resources. برنامج كان يوحو ترتراع أو خلق كمبيوتر كي حكتي كوجي يا كمبيوتر كلوايا أو خلق يا deleting data حكتي أيو delete جرينا يا or partially modifying files أو واحد اللي بدله يا فيلاشي so that they are no longer usable. داتدي هدي wax laga bedelo ama la delete gareeyo ma noqonayso markaas mid mustaqbalka la isticmaalo computer virus kani is harmful program waa barnaamij dhib badan that self replicant by copying wuxuu isku sameeyaa inuu iskoobiyo oo isbadiyo itself nafsadiisa to another program wuxuu iska dhigaa barnaamijyo badan barnaamijyo kale ay isu bedelaa فيروسku waxa weeye magacyo badan ayuu qaataa virusku isbedela wuxuu yeeshaa magacyo badan iyo noocyo badan ayuu yeeshaa isku bedela it's a program waa barnaamij has the ability waxa awood u leeyahay to reproduce itself waa barnaamij awood u leh in uu soo saaro nafsadiisa khatar computerka ku soo saaro with the user knowledge hadii uu isticmaalo aqoon wuxuu u yeelan karaa halis ayuu barnaamijkani ku keeni karaa maadaama uu yahay barnaamij virus yahay computerkana uu wax yeeli karo waxa daawo ah xanuunkan viruska ee computer ku dhaca antivirus in lagu shubo kadibna updating lagu sameeyo types of computer virus noocyada viruska computer virus are classified waxa loo kala saaraa according to their nature inagoo u fiirinayna qaab dhismeedkooda of infection and behavior waxay ku kala duwan yihiin virusyadu waa xanuunka ah qaabka ay u soo galayaan computerka iyo meelaha ay ka yimaadaan ayay ku kala duwan yihiin virusyada tani different types of computer virus virusyada tani classified waa la kala saaraa are given below xaqan hoose ayaynu ku kala saarina waxa jira malaayiin nooc oo viruses ah laakiin waxa ugu caansan sagaalka nooc ee viruska ay soo socda ayaa sagaalka nooc ee ugu caansan virusyada ku dhaca computerka types of computer virus virusyada noocyadooda way badan yihiin waxaynu u qaybinaynaa sagaal nooc nooca koowaad waxa loo yaqaanaa boot sector virus waa virus wuxuu ku dhacayaa cajilka computerka ku jira gudihiisa kadibna wuxuu tirtirayaa dhammaan xogtii ku jirtay computerka boot sector virus kani effects wuxuu waxyeelayaa the direct sector qaybta ugu horeysa oo waxyeelayo waxa weeye the hard drive waa cajilka qaybtan virus kani wuxuu waxyeelaa cajalka computerka wax ku kaysado sida
Bida iyo Ida cajaladahaas ku jira computer gudihiisa ayuu waxyeelaa. If a computer is infected, haddii uu computerku xanuusto with boot sector oo cajaladahaas oo virus ku dhaco boot sector virus, when the computer is turned on, virusku wuxuu computerka soo gelayaa markii computerka la shido. Computer dinsan virus kuma dhici karo. Virusku wuxuu ku dhacaa computerka markii uu la shido. Dhammaan inta ugu badan virusyadu waxay ka yimaadaan internetka. The virus launches, viruski wuxuu soo gelayaa immediately si degdeg ah and is loaded into memory, wuxuuna waxyeelayaa maskaxda computerka kaydka ayuu waxyeelayaa, enabling it to control the computer. Wuxuu isku dayayaa inuu computerka shaqadiisii la wareego maadaama ay memorygu shaqada computerka haysay CPU-du haysay. Markuu ku dhaco viruskani wuxuu awood isbidayaa inuu la wareegi karo CPU-da shaqadeedii oo computerka isagu maamulo oo faylasha ka delete gareeyo. taasi waa tallaabada koowaad uu virus computer ku soo galo. waxaa loo yaqaanaa boot sector virus. waa stepka koowaad waxa uuna soo wajahaa oo ku dhacaa computerka cajilkiisa, wuxuuna ka saaraa dhammaan casharadii ku jiray. qaybta labaad waxaa la yiraahdaa file deleting virus. waxa uu delete gareeyaa dhammaan faylasha ku jira computerka. file deleting virus can is designed wuxuu u habaysan yahay to delete critical files. wuxuu waxyeelaa faylasha muhiimka ah ee computer ku jira which are the part of operating system. faylashaas oo computer ku shaqeeyo or data files ama faylash ay xogtiina ku jirto ayuu waxyeelaa. faylakani wuxuu delete gareynayaa viruskani wuxuu delete gareynayaa faylasha ku jira computerkaaga. Word ha ahaadeen, PowerPoint ha ahaadeen, Access ha ahaadeen, PDF ha ahaadeen, kulli haddii aan antivirus lagu shubin dhammaantood way ka baxayaan computerka. waxaana uu ku sameynayaa saameyn weyn. qayb wuxuu ka dhigayaa shortcut kuwa aan furmi karin, qaybna wuxuu ka dhigayaa qayb uu delete gareeyo oo la waayo. direct action virus waa viruska saddexaad. sagaalka virus ee ugu caansan buu ka mid yahay. waa viruska saddexaad, waa tallaabada saddexaad oo virus computer ku soo geli karo. direct action virus kani is the one of the two main types of file infection virus. waa virusyada ku dhaca computerka, waxaana loo sii qaybiyaa laba qaybood. the other being is a resident virus. file infected virus iyo resident virus baa loo kala saarayaa. waa file mid faylasha computer ku dhacaya iyo mid resident virus ah oo computerka had iyo jeer la jooga ama xilli kasta computerka ku jira. it does not install itself haddii aan lagu shubin isaga oo remain hidden in your computer memory. wuxuu isku qariyaa maskaxda computerka ayuu isku qarinayaa. haddii antivirus xoog leh lagu shubo oo la update gareeyo dhammaan virusyadaasi way ka baxayaan computerka. nooca afraad ama tallaabada afraad oo virus computer ku soo geli karo ama qaybta afraad waxaa la yiraahdaa resident virus. resident virus waa virus computerka had iyo jeer la jooga. haddii aan updating xoog leh computerku helin wuu iskala joogaa. resident virus are the other primary types of file infection. wuxuu waxyeelaa faylasha. unlike direct action virus lama uusan la mid aha direct action viruska toos computerka ugu dhaca. they install themselves on the computerka ay ku shumaa. it allows them wuxuu u ogolaadaa to work even the original source. computerkii in uu wax ka bedelo ilihii computerku ay wax ku jireen dhammaantood ayuu wax ku yeeshaa saameyn oo wax ka bedela maadaama uu yahay virus computerkii ku jira oo la nool. of infection has been destroyed. wuxuu dhammaan original sourceski ama fileskii meesha ay ku jireen ayuu dhammaantood viruskani baabi'inayaa. viruskani haddii uusan updating xoog leh helin computerka
xogta ku jirto dhan wuxuu ka dhigayaa mid mataqaana markaas la delete gareeyay. Polymorphic virus waa viruska shanaad. Polymorphic virus kani have the capability wuxuu awood u leeyahay to change inuu bedelo the appearance muuqaalka computerka. shaashadaadi ayuu hadda wuxuu u soo saarayaa midab nooc gaar ah ayuu hadda ka dhigayaa, mar guduud buu ka dhigayaa, mar madow buu ka dhigayaa, mar jaalo ka dhigayaa. And change the code wuxuu bedelayaa every time. The infecting different system computerka ayuu waxyeelayaa viruskani, wuxuuna waxyeelayaa qaybaha kala duwan ee computerka ayuu xilli kasta waxyeelaa. Programyada computerka lagu sameynayo waxa weeye in waxay noqonayaan kuwa aan shaqeynayn. haddii computerka markaas database ama barnaamijyo lagu sameynayay, barnaamijyadaasi waxay noqonayaan kuwa aan shaqeynayn. This help waxay ka caawinaysaa the polymorphic virus can to hide from antivirus software. wuxuu ka dhuntaa antiviruska ayuu ka dhuntaa haddii uusan helin update xoog leh aan lagu sameyn, wuxuu ka dhumanayaa antiviruska. kadibna computerkii dhammaan casharadii ku jiray wuxuu ka dhigayaa kuwo la waayay, kuwo la tirtiray, kuwo wax ka maqan yihiin, intaa ayuu ka dhigayaa. marka wax antivirusku waa cajilkaas waxa weeye waa la soo qadayaa, computerka waa la gelinayaa, waana la update gareynayaa. talaabada lixaad oo virus computer kusoo geli karo ama nooca lixaad ee viruska stealth virus baa la yiraahdaa. viruska lixaad waa virus halis badan. waxa weeye viruskani wuxuu bedelaa cabirkii faylasha. have the capability wuxuu awood u leeyahay to hide from operating system, wuu isqariyaa or antivirus software wuxuu iska qariyaa antiviruska by making change file size. wuxuu bedelayaa faylka cabirkiisa. tusaale ahaan faylka hadduu ahaa 19 MB wuxuu noqonayaa 20 MB oo viruskii ayaa ku galaya. marna faylasha qayb buu ka saaraya, hadduu 17 MB ahaa wuxuu noqonayaa 16 MB oo marna waxa weeye waxbuu ku darayaa faylkii, marna waxbuu ka jarayaa faylkii, mar viruskii buu kusoo darayaa, marna faylka laftigiisa cashirka ku jiray buu ka saarayaa ama delete gareynayaa. oo direct structure ama qaabkii faylka ayuu bedelayaa. retrovirus viruskani waa viruska toddobaad ee computer ku dhaca. retrovirus is another type of virus. waa virus ku dhaca computerka, waa xanuun computer ku dhaca which tries to attack. wuxuu isku dayaa inuu weeraro and disable inuu ka shaqaysin the antivirus applications antiviruska run on the computer ee computerka. antiviruskii computer ku jiray ayuu wuxuu ka dhigaa mid aan shaqeynayn. haddii antivirus uu la update gareyn wuxuu ka dhigayaa disable, mid aan shaqeynayn ayuu wuxuu ka dhigayaa antiviruskii running on the computer ee computer ku jiray. some retrovirus attacks viruskani wuxuu weeraraa the antivirus applications antivirusyada and stop it from running. antiviruskii ayuu wuxuu ka joojiyaa shaqada. retrovirus viruska loo yaqaanay wuxuu weeraraa antiviruska kadibna wuxuu ka joojiyaa shaqada. laakiin haddii si fiican internetka loogu update gareeyo from 1 up to 100 uu qaato, dhammaan virusyadii halka ayay ku dhimanayaan. viruska ugu badan wuxuu ka yimaadaa internetka. browser hijacker ayaa u naqaana nooca kan. browser hijacker is defined as waxaa lagu qeexaa a form unwanted software. waa software aan la aqoon meeshuu ka yimi. that modifies badanaa laakiin wuxuu ka yimaadaa internetka. that modifies wuxuu bedelaa web browser, wuxuu bedelayaa browserkii setting qaabkiisii with the user permission. isagaan wax ogolaansho ah ka qaadan isticmaalaha ayuu viruskani computerka soo gelayaa, wuxuuna ka yimaadaa internetka. macrovirus waa viruska sideedaad. macrovirus waxa uu waxyeelaa qoraalka. dhammaan casharadii ku qornaa uu baabi'inayaa macrovirus. macrovirus are written in the some macros language. wuxuu waxyeelayaa casharadii used for software application softwareka ku qornaa. dhammaan casharadii kugu qornaa softwarekaaga ayuu baabi'inayaa oo gabi ahaanba saaraya. how computer virus spread. sidee baa viruska computerku u fidaa? computer virus usually spread in one of these ways. hababa kan ayuu ku fidaa.
sidee hababka ku fidi karo maxaa ka mid ah fayraska ku dhaca computerka wuxuu soo marayaa flashta ayuu computerka ka raacaya oo computerka lagu tagaya internetka ay ku soo raaci karaa ama email attachment ama emailka from removable media wuxuu ka imaanayaa flashta or external device ama qalabyada banaanka computerka laga soo gasho sida USB sida USB go kale driver USB ga ayuu soo gali karaa aan external driver iyo cajaladaha banaanka from download of internet iyo internet wax laga soo dejinayo from email attachments iyo emailka computerka adeeno scan garayn emailka isagana virusku waxa way hababka virus computer ku soo gala ay ka mid tahay. What are the signs of computer virus? Calaamadaha lagu yaqaan maxay tahay computerka inuu jiran yahay? Computer virus attacks can produce a variety of symptoms. Waxaynu ku naqaanaa calaamado kala duwan computerka inuu xanuunsan yahay. Are some of the kuwa kan waxa kamid ah frequent pop-up window in shaashada ay markasta qoraal laga soo yacaanin. Mass email being sent from your email account. In emailkaaga account lagu soo diro ama email lagu soo diro iyadana waxa kamid tahay calaamadaha lagu yaqaan computerka inuu jiran yahay. Frequent crashes inuu computerku oo crashes ay ku dhacaaniin oo casharadii ay furmi waayeen soo kici waayeen ayaa kamid ah calaamadaha lagu yaqaan casharadii inay ku soo kici waayeen ama ku furmi waayeen ama cuslaadaanba. Usually slow computer performance iyo computerkii wax qabadkiisii inuu hoos u dhaco. Unknown programs that start up in barnaamijyo iska soo shidmaan when you turn on your computerkaaga markaas aad u kicisidba inay barnaamijyo iska soo shidmaaneen iyaduna waxay ka mid tahay calaamadaha lagu yaqaano computerkani inuu jiran yahay. Effects of the virus to computer saamaynta ay calaamadahaasi keeni karaan maxaa ka mid ah a virus can destroy virus wuxuu burburin karaa delete wuxuu tirtiri karaa oo corrupt wuxuu qaldi karaa that xogti displays irritating messages wuxuu tirtiri karaa fariimihii or other softwares ama softwareada kale disrupt computer operations computer shaqadiisa ay bedeli karaa disable hardware the computer unusable computer wuxuu ka dhigi karaa mid aan shaqeynayn ayuu ka dhigayaa it can perform dangerous operations computerkii mid aan shaqeynayn ayuu ka dhigi karaa haddii calaamadahaas ay sii socdaaneen it can perform dangerous operation in shaqadii computerka waxay noqonaysaa mid halis ku jira like formatting the disk cashirka computerka waa la tirtirayaa formatting ayaa lagu sameeyaa waa la tirtirayaa dhammaan wixii cashir ku jiray way ka baxayaan in computerka haddii virusku dhowsanado ku jiro waa halis viruska corona kale ayuu u dhigmaa virusku haddii aan computerka laga daaweyn it can consume the disk space wuxuu qaataa space ay wuxuu ka samaystaa computerka memory maskaxdiisa and wastes the processor time kadibna wuxuu lumiyaa maskaxda computerka ayuu qayb kamid ah degayaa kadibna computerka ayuu maskaxdiisa ayuu wuxuu ku sameeyaa degayaa kadibna waxa halka ayuu wuxuu ka sameysanayaa oo computer ka soo weeraraya maskaxdiisa mar hadduu dego dhammaan faylasha kalena si degdeg ayuu wax ku yeeli karaa. Ways to protect your computer from virus computerkaaga si virus ku difaaci karaa. Here are the list of the ways how to protect the computer virus from computer virus ka difaaci karid. Use of antivirus program in isticmaasho barnaamijka antivirus program barnaamijka antivirus is a program designed waa barnaamij loo habeeyay to protect your computer inuu computerka ku difaaco against computer virus inuu viruska computerka ka dilo waa barnaamij loo habeeyay. If and when virus is detected markaan viruskaas dareeno the computer displays a warning computerku wuxuu ku soo dirayaa fariin markuu virus dareemo isla markaana waa in cajalkan virus la yiraahdo si degdeg ah u soo gadataa waan asking wuxuu lagu weydiinayaa what should action should be done wixii uu qaban lahaa virusku wuxuu ku soo dirayaa waan ayaa lagu soo dirayaa si markaas aad cajalkan viruska computerka ugu shubtid often given the option to remove kadibna waxa way waa ka saaraysaa fayrasyadii ignore haddii aan rabinna waa iska dayn kartaa or remove so the file that default faults faylasha kana waa iska saaraysaa wixii fayl ah oo virusku aragtid furmi waa la computerka waa in laga saaro haddii kale virusku markaas ku soconaya antivirusku muxuu yahay waa cajil computerka la geliyo kaas oo computerka lagu shubo waa lagu install gareynayaa next baa leedahay ilaa finish aad dhamaysid insha Allah casharada dambe ayaynu waxaan ku soo duubi doonaa practicalka casharka aan ku arkaynaa. Use of antivirus programs barnaamijka antiviruska isticmaalkiisa we need antivirus programs to scan our computer
computerka ayaan ka install ka scan gareynaynaa and all its files waa scan gareynaynaa computerka to check external devices against dhammaan waxaanu check gareynaynaa external devices qalabyada against any possible threat dhammaan qalabyada computerka waa check gareynaynaa file waxaan marinaynaa scan and to protect our PC computerkeena waa inaanu difaacnaa personal computerka from malware waa inaan ka difaacnaa virusyada coming through the internet ka imaanaya virus u badan wuxuu ka imaadaa internetka waa inaan iska difaacnaa antivirus waa cajalka aan computer gelinayno ayaa waxa loo yaqaanaa antivirus examples of antivirus waxa tusaaleyn kamid ah Kaspersky ayaa kamid ah Windows Defender ayaa kamid ah Norton antivirus ka Norton loo yaqaano saddexdaasi waa la gadaa and MS free download popular free antivirus waxa jira kuwa free ah programs include waxa kamid ah Avast and FHE labada barnaamij waa barnaamijyo waxay yihiin bilaash ah oo computerka lagu antivirus ahaan loo isticmaalo oo lagu shubto Avast special websites waxa iska ilaalisaa websiteska viruska iska leh a lot of time waqti badan websites will notify you websites waxay ku soo dirayaan if you are about to enter markaad gashid websiteda that attempt to install or run programs software-ada qayba waxay ku soo dirayaan in aad barnaamijyo ka degsatid laakiin barnaamijyadaas virus bay leeyihiin to run programs on your computer barnaamijyadaas computerka inaad ka soo degsatid but not always had iyo jeer ma aysan ahaa kuwa software-daasi kuwa safety ah avoid websites such those kuwaas iska ilaali suspicious websites waxa la websiteska qayb kamid ah oo virus iska leh hadii aad gashid dhammaan casharadaadii waxa weeye virus ayaa kala soo degaysa salahaan kale waxay ku leeyihiin antivirus kan la degba mid bilaasha laakiin waa virus markaad la degtid computerka isla mar waa ka istaagaya dhammaan casharada computerka waxay ka noqonayaan kuwa effect saamaysan never open email attachments emailka furin without screening them adigan scan marin emailka furin marka warqad lagu soo diro isla marka waa furin waa inaad scan marisaa the most common ways waa how ka caansan viruses as sida ku fidaanin remains to be throughout emailka ay maraan make sure waa inaad hubtaa you are use email provider inaad isticmaashid email provider that requires wuxuu u baahan yahay all attachments to be scanned dhammaan warqadaha attachmentska wixii warqadaha dokumentiyada lagu soo diray to be scanned period waa inaad scan garaysaa to opening to the ensure your computer does not get virus on computerka virus u helin ama uusan ugu dhicin waa inaad scan garaysaa dhammaan attachmentski internetka waa inaad scan garaysaa keep your device secure qalabkaaga ilaasho make sure to download recommended updates waa in aad qalabyada computerka ilaashataa oo viruska ilaalisaa markasta update garaysaa cajaladaha viruska iska ilaalisaa flashada viruska iska ilaalisaa make sure waa inaad hubtaa to download recommended update waa inaad computerkaaga update garaysaa from your devices qalabyadaada manufacturers or operating systems ama software-da computer ku jira waa inaad update garaysaa provider software-daas aynu haysano especially for important software muhiimka ah such as your internet browser sida browserka kale waa inaan update garaynaa browserada laftigooda waa inaan update garaynaa dhammaan faylasha computerka nagu jira waa inaan update garaynaa antivirus antivirusyadu waxa kamid ah anti-spyware waa antivirus software and firewall dhammaan waa antivirusyo are all also important tool waxa ku jira qalabyo muhiim ah to stop attacks on your device waxay muhiim yihiin oo ilaalinayaan in viruskii computerku soo gali lahaa keep to update ila update garay update your system waa inaad update garaysaa browseradaadii aan important applies iyo qalabyadii regularly si joogto ah taking advantage of automatic updating when it is available waa inaad update garaysaa xilli kasta computerkaaga this updates can eliminate waxay ciribtiraysaa softwareadii soo qulqulaya that allows hijacker kuwaas oo rabay inay waxyeelaanin to view your device qalabyadaada
ama computerkaaga waa inaad update gareysaa update joogto ah waa inaad ku sameeyo meel walba waa inaad internet tagtaa update gareysaa use strong protection waa inaad password adag isticmaashaa haddii kale daan password adag isticmaalin file kasta virusku uu kaa jabinaya ama waa dilaya make use of complex password waa inaad password isticmaashaa adag and strong methods waa inaad isticmaashaa habab of authentication at kama mushid can help you keep your personal information secure si alaabta qalabka computerka ugu jira ay secure u noqdaan revision questions waa su'aal define the term computer virus virus list types of computer virus noocyada virus maxay how do you know si wax ogaan kara dad computer is affected with virus and virus ku dhacay state 3 ways waxa sheegay saddex abdaad iyo protect your computer virus oo difaac ka dhig was antivirus miya barnaamijka antivirus ku antivirus program is used to antivirus loo isticmaalaa increase storage capability of computer inuu computerka qabadkiisa kor u qaado printer documents from computer inuu computer ku daabaco and the computer inuu ku daabaco play games in computer and games ku ceshan protect computer harmful virus attacks and virus ka ilaaliyo which tab qaybta of computer disable the function antivirus program which type of computer disable the function antivirus program كيبا فيروس حيالية نوعه antivirus كمد أو كمبيوتر كريجا فيروس عمد عن شقينه أما antivirus كريجا عمد عن disable عن شقينه deleted virus macro virus retro virus and the following are the effects of the virus virus سامين to short computer except ما كلا جربه delete virus disable hardware virus increase computer performance format hard disk effects of واسامنت of virus ku yeesho markii laga reebo mid baan ahayn intaas ka saaraysa which of the following application software is antivirus program kuma antivirus MS Excel video editing Mozilla Firefox Kaspersky to protect virus from computer update your PC use strong protection or open an email attachment A and C are correct wixii isgabagaliya which type of virus able to change its appearance to affect computer virus ke computer ka qaabkiisa bedelaya macro virus polymorphic virus resident virus which of the following virus are able to hide in your operating system keba software ka dhunta virus kan direct action virus stealth virus resident virus macro virus